kusoorada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin dowladda Ingiriiska ayaa halis ka dhigaysa haddii xildhibaanada baarlamaanka dalkani u codeeyaan in ay la wareegaan hanaanka ka bixista midowga Yurub warbixin dheeraad ah ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah 4 sano kadib goortii dagaaladu ay ka qarxeen dalka Yemen warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno xaaladda bini'aadanimo ee dalkaasi ayaanu idin haynaa dalka Sierra Leone waxaanu idinkaga haynaa warbixin aan ku eegayno sida ay maraakiibta kalluumaysiga sharci darrada ah ay u xaalufinayaan kaydka kalluunka dalkaasi rajadii laga qabay in la soo celiyo sawirkii taariikhiga ahaa ayaa soo laba kaclaysay 75 sano kadib ayuu kamid ahaa qalab ay ciidamada Nazi-gu bilaqaystaan kala soco BBC News Somali Television raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa BBC London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal anigu waa Maxamed Cabdi Xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe isxaglinta awoodeed ee u dhaxaysa xukuumadda iyo xubnaha baarlamaanka ayaa sii xoogaysatay dalkan Britain waxa la isku hayaa biyadhaca hanaanka ka bixista midowga Yurub waxa la filayay in Britain ay midowga Yurub ka baxdo 29 Maarso hadwa markii aftida hore loo qaaday laakiin wali waxa jira jahawareer baahsan oo ku aadan xilliga iyo qaabka iyadoo xitaa wali su'aal la iska weydiinayo in gabi ahaanba arintaasi ay dhici doonto iyo in kale dhowr jeer oo isxigxigay ayay ra'iisul wasaare Theresa May ku hingowday xisbigeeda Conservative-ka dhexdiisa arintaas oo wiiqday awoodeedii iminkana waxay u muuqataa in xildhibaanadu ay doonayaan inay ka faramaroojiyaan maamulista hanaanka ka bixista midowga Yurub iyadoo sama aaminsan in arintaasi ay tahay tilaabo dhanka wanaagsan loo qaaday waxa aanay tiri markii aan tallaabooyinkan oo kala qaadnay waqtiyo hore natiijooyin isburinaya ama natiijo la'aan ayaa ka dhalatay marka laga hadlayo Brexit arrinku waa uu ka sii xag jiraa maadaama UK ay qayb uun ka tahay doodda codayntanina waxay keeni kartaa natiijooyin aanan waxba EUda lagala xaajoon karin xildhibaanadu waxa ay iminka dhowr waji oo kala duwan uga codeynayaan heshiiskii ay May la soo gashay midowga Yurub wajiga koobaad waa ka bixista sahlan waxa loogu yeero oo micnaheedu ay tahay in canshuuruhu ay mid ahaanayaan xiriir ganacsi oo dhowna lala yeelanayo midowga Yurub kan labaad waxa uu noqonayaa waa waji ah in gabi ahaanba la laalo qodobka kontonaad iyagoo aan fasax weydiisan ama Britain wax fasax aan weydiisan 27 dal ee kale ee midowga ka tirsan taas haddii la yeelo UK qayb ayay ka sii ahaan doontaa midowga iyadoona u hogaansami doonta qawaaniinta midowga ka saddexaad waa in afti labaad mar kale la qaado dhowr kale oo wajina ay jiraan dabcan haddii aqlabiyada laga helo Theresa May waxa ay ku qasbanaan doontaa in ay dib ugu noqoto midowga Yurub si ay ula gasho heshiis cusub laakiin ra'iisul wasaaraha iyo midowga Yurub midna xilka ma saarna in ay aqbalaan si kastaba ha ahaatee Britain waxa ay haysataa ilaa 22 bisha May ugu dambeyn in ay heshiiskan aqbalaan ama in ay waxuba burburaan hadaba waxa stuudiyaha ila jooga Cabdirasaaq Xaji Maxamed Siraad oo arimahan Brexit-ka ama ka bixista midowga Yurub ee Britain si weyn ula socday Cabdirasaaq marka horena waxa la lahaa 29 March bay Britain ka baxaysaa midowga Yurub iminkana waxa loo qabtay 22 May taariikhahan macnaheedu waa maxay taariikhahan baraya taariikh badan ayaa yimi maalmo badan ayaa la qabtay oo la doonayay in Britain ay ka baxdo hase yeeshee markii la yiri waxa laga baxayaa 29 March dhowr cisho ka hadhay waxa ahayd markaasi Britain in la yiraahdo waqtigan hadii ay gaari kari weydeen marka waa ka baxaysan haddana waa tan dib loo dhigay laga dhigay 22 May sababta looga dhigay 22 May waxa ay tahay doorashooyinkii baarlamaanka Yurub ayaa dhacaya marka iyadoo on heshiis la gaadhin hadii doorashooyinka ay yimaadaan dhibaatooyin badan baa imanaya Britain marka waxa weeyaan murashaxiin ma keenaysa hadii ay ka baxdo laakiin waxa weeyaan in wax xun dhici karaan laakiin maalmaha badan waa aynka cawsa hadii aan dib ku celiyo Britain horta goormay ka mid noqotay midowga Yurub sideena ahayd sidii loo galay midowga Yurub markii soo horta Britain waxa ay gashay midowga Yurub markuu sanadku 1974 waxa ahayd afti bay ku gashay aftidan ay kaga baxday mid lamid ah
ay markaasi ku gareen inay halka ku biiraan laakiin waxa weeyaan muddo ay ku qaadatay Britain in ay gasho markii hore waxa lagu jiray suuqa Yurub waxa ay noqotay haddana EEC wax la yiraahdo waxay noqotay midowga Yurub marka Ingiriisku Britain waxay ka cagataaleysay had iyo jeer oo ay ka baqanayeen in ay samaysanto wax Mareykanka oo kala ah oo dalalka Yurub isku biiraan marka waxba u muuqday ay ka qaylinayeen waxaan filayaa marka waa 74kii inaad BBC-da joogtay oo sidan oo kale oo la socotay aftidan iyo waxaan socda Francisco marka uu diidanaa muxuu diidanaa Francisco De Gaulle markuu madaxweynaha ka ahaa Faransiiska ayaa waxa jirtay inuu had iyo jeer oran jiray uma ogolay Britain inay soo gasho wixii la oran jiray markaatada ama suuqa Yurub sababtuna waxay ahayd maadaama Jarmalku siyaasad ahaan uu hoos ahaa isagu dagaalkii labaad kadib maqadinka Yurub wuxuu ahaa markaasi Faransiisku markaa haddii suuqa loogu yimaado ay Britain u timaado tartan baa imanaya marka wuxuu doonayay isagu intiisa yar inuu maamulo oo heshiiskii lagu gaaray Rome ee lagu sameeyay ururka uu halka ahaado Britain la cadaadiyo laakiin markii loo ogolaaday ee la yidhi afti ra'iisul wasaarihi hore 47kii uu yiri aftimaan qaadaya ayaa markaa la ogolaaday dadka afti loo fidiyay dabadna waxay ogolaadeen inay ku biiraan midowga Yurub Cabdirasaaq aad oo maasta 74kii baa ula jeedaa waan filaya mahadsanid Cabdirasaaq bal markan haddii aan eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta Pentagonka Mareykanka ayaa ogolaaday in la bixiyo $1 bilyan oo loogu talagalay militariga Mareykanka inay xadka Mexico ka dhistaan darbi gaaraya ilaa 190 kilomitir waa lacagtii ugu horeysay ee la fasaxo kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay xaaladda degdega ah ee qaran si uu uga gudbo xeendaabyada ee aqalka Congress-ka hordhigeen inuu fuliyo balantiisii ahayd inuu darbigan dhisayo dimuqraadiyiinta ku jira aqalka Congress-ka ayaa arrinkan ka gadooday ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee Shiraz ee dalka Iran dad kale ayaa ku dhaawacmay daadadkaasi oo ka dhashay roobab lixaad leh oo toddobaad iminka ka da'ay dalka Iran waxay dawladdu ka digaysaa in ay daadad ka dhici karaan ilaa 10 gobol oo ay ku jirto caasimadda Tehran arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay dad badani ku dhex safrayaan dalka gudihiisa si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub ee Persia in ka badan 3 meelood meel dadka Afrika waxa ay doorbidayaan inay haajiraan si ay uga baxsadaan saboolnimada iyo isla markaana ay u helaan shaqo ay ka helaan cilmi baaris cusub oo laga qaaday 34 dal ayaa sidaas xaqiijisay Afrobarometer ayaa ogaatay in tiro kamid ah dadkii sanadkii hore laga badbaadiyay ee badaha ay doonayaan inay Europe soo galaan dadka doonaya in ay soo dhoofaan ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin dhalinyaro wax baratay Yemen waxaa ragaadiyay dagaalka u dhaxeeya ciidamo dawladda taabacsan oo gacan ka helaya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo kooxo mucaarad ah oo Xuutiyiin ah oo iyaguna Iran ka helaya taageero toddobaadkan 4 sano ayaa ka soo wareegtay bilowgii dagaalka Yemen in ka badan 8,000 oo qof ayaa dagaalka ku dhimatay tan iyo 2015 Aisha Afrax ayaa ka waramaysa warbixintani waxa ku jira sawirro naxdin leh isbitaalka weyn ee Xudayda waxa buux dhaafiyay dad aad u dhibaataysan dagaalka 4 sano socday ee Yemen waxa uu sababay musiibo bani aadamnimo Ilham waa 2 jir sidii canug hadda uu dhashay miisaankeedu waa 3 kiilo dagaalka iyo go'doonka aawadood raashinku waa qaali hooyooyinka laf ahaantoodu way gaajoonayaan siday marka carruurtooda ku nuujin karaan tobanaan carruur ah oo ay macluul hayso isla markaana qaba baahi caafimaad oo badan ayaa isbitaalkan la keenaa maalin walba nafaqa darrada daran ayaa maqaarka canugan sidan u gashay 4 sano ee tagtay qiyaas ahaan in ka badan 80,000 oo carruur ah ayaa u dhimatay nafaqa darro Khadija waa 10 jir geeri ayay ku sigatay inta aanay hooyadeed halkan keenin Ilaah ayaa mahad leh hadda way roon tahay balse markaan guriga aadno ma aqaano waxaan siin doono subaxa hore ilaa maqribkii ayaan shaqeeyaa raashinka wali ma nagu filna iyadoo in ka badan kala bar isbitaalada Yemen ay xiran yihiin dad badan ayaan heli karin gargaar caafimaad isbitaalkan oo kaliya lagu sifeeyo waa uu buux dhaafay
bukaanadu waa inay ugu yaraan 3 jeer keliyaha laga sifeeyaa toddobaadkiiba laakiin maalin walba bukaanno cusub oo tabaalaysan ayaa yimaada nasiib ayaan leeyahay haddii isbuuciiba hal mar keliyahayga la sifeeyo dadka xanuunsan halkan aad ayay u dhiboonayaan wax walba waa qaali isbitaalkuna wuu buux dhaafay magaalada Zaydiya waxaa ka dilaacay daacuun dhakhaatiirtu waxay u haysteen in la cirib tiray kadib markii uu dalka ku faafay sanadkii hore dagaalka iyo faqriga ayaa sahlaya in cudurku uu si degdeg ah oo aan ebid hore loo arag uu u faafo sanadkan kaliya waxaa u dhimatay ilaa iyo 190 qof biyaha ceelka ayaan ka soo shubnaa waana ku xanuunsannay waxay nagu yiraahdeen waxa idin haya cudurka daacuunka waan ognahay inaysan biyuhu nadiif ahayn balse maxaa kale oon cabnaa 80% dadka reer Yemen waxay noloshoodu ku xiran tahay gargaar hase yeeshee howlgallada gargaarka ee aan dalka si fudud u soo gali karin ayaa xaaladda sii xumeeyay maalin kasta oo uu dagaalku sii socdo dadka Yemen waxaa ku sii badanaya cudurrada iyo gaajada marwalba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkan nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxaa inoo soo socda aad qaybaha dambe barnaamij ku daawan doontaan dalka Sierra Leone waxaanu idinkaga haynaa warbixin aan ku eegayno sida ay maraakiibta kalluumaysiga sharci darrada ay u xaalufinayaan kaydka kalluunka dalkaasi qadar yar oo nasashaha dabadeed habeenaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waniga waa maxamed cabdi xaraare bal aan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn dowladda ingiriiska ayaa halis ka digaysa haddii xildhibaanada baarlamaanka dalkani u codeeyaan inay la wareegaan hanaanka ka bixista midowga Yurub 4 sano kadib goortii dagaaladu ay ka qarxeen dalka Yemen waxaanu eegnay xaaladda bini'aadanimo ee Yemen oo ka sii daraysa Israa'iil ayaa dhowr duqeyn ah ka geysatay bartilmaameedyo Gaza ku yaala iyadoo oo kaga jawaabaysa gantaalada Falastiin ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Hamas dhowr goobood ay gantaal ku duqeeyeen kooxaha Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 30 gantaal iyagu ku rideen Israa'iil qaramada midoobay waxa ay ku baaqday deganaansho Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa ka waramaya xalay lama seexan Gaza tobanaan dayuuradaha Israa'iil ayaa garaacayay dhismayaal la sheegay inay lahaayeen maamulka mitidka ee Gaza ee Hamas isla markaa gantaalo ka imanaya dhinaca Falastiiniinta ayaa lagu ridayay magaalooyinka ku dhow Israa'iil dadku way gabanayaan iyadoo habkii difaaca Israa'iil ay sugayaan in la meel mariyo talaabooyin adduunka ah oo degdega ayaa socda in rasaasta la joojiyo masar ayaan kala sii shaqaynaynaa iyo qaybaha kale ee qusayso si la isugu dayo in la dejiyo xaaladda lana dhiirigeliyo isxakamayn xasilooni darro kale waxay kaga sii daraysaa xaaladdii xumayd gaar ahaan rayidka Gaza hore Gaza dadku waxay eegayeen burburka iyadoo oo dayuuradaha aan cidi wadana darooniska Israa'iil ay dul marayaan
halkan waxay ahayd xafiiska hogaamiyaha xamaas oo la garaacay. magaalada Sidrot ee ku taalla koonfurta Israa'iil nin baa safaynaya gurigiisa oo gantaal ku dhacay. dadka degan Sidrot hadda waxay ka faa'iideysanayaan deganaansho waxoogaa si ay u soo dukaamaystaan, laakiin iskuuladii iyo xafiisyadii way xidhan yihiin. waxaana la mid ah tuulooyinka ku dhow Israa'iil iyo xataa Gaza lafahanteeda. dadku way yaaban yihiin, waxaanay sugayaan inay arkaan waxa xigay ee dhici doona. taangiye dheeraad oo Israa'iiliyiina ayaa goobaha u jeeda. askar dheeraada ayaa la geenayaa dhinaca koonfurta. Israa'iil waxay doonaysaa inay muujiso waxa u furan military ahaan ay samayn karto. taa macnaheedu waa inay xoogooda muujiyaan. kalluumaysiga galbeedka Afrika, mid ka mid ah meelaha ugu habboon ee kalluunka laga jalaabto dunida, ayaa halis ugu jirta inay baaba'do. khubarada iyo kooxaha deegaanka ayaa sheegaya in jariifada shirkadaha waaweyn ee dunida, gaar ahaan Shiinaha, ay mas'uul ka yihiin xaalufkan. wariyaha BBC-da Paul Adams ayaa Sierra Leone u tagay inuu ogaado tallaabooyinka ay qaadayso mid ka mid ah dalalka ugu nugul gobolka si ay ula tacaalaan dhibaatadan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya. Abubakar Akonte waxa uu kalluumaysanayay ilaa waa barigii kalluun badanna ma uu daban. We are not happy for this because it is small catch. kalluunkii wanaagsanaa waa uu dhammaaday ayuu yidhi. ajanabi ayaa jallaabtay. maxaad jeceshahay inay dawladdu qabato ayaan weydiiyey. waxaanu doonaynaa inay dawladdu dadkan ka joojiso inay halkan ka kalluumaystaan. reer Sierra Leone waxay si weyn isugu haleeyaan badda, cunto iyo shaqaba. Sierra Leone waxay ka mid tahay dalalka caalamka ugu faqiirsan. dagaal sokeeye ayaa khayrkeed sagaashanaadkii ka reebay, kadibna xanuunkii Ebola ayaa haleelay. iminkana dhinaca biyaha xaalad kale oo adag ayaa soo wajahday. marka qalqal la geliyo bii'ada, marka la baabi'iyo in dib loo soo celiyaahi way adag tahay, xitaa haddii la joojiyo kalluumaysiga qarniyo. wakhti badan ayay ku qaadanaysaa in kalluunku uu soo kabto. waxaanu raacnay ciidamada ilaalada xeebta. saq dhexe ayaanu dhaqaajinnay. waxaa naloo sheegay inay jiraan dad u basaasa doomaha kalluunka xado oo u sheegaya in lagu soo socdo. markii aanu sii soconnay muuqaalka satellaytka ayaannu ka aragnay in ay doonyo ajanabi ahay shaqadoodii wataan oo ay kalluunkii dabanayaan. waannu dabagallay. waxa aannu gaadhnay 2 doonyood oo Shiine wato oo aannu uga shakinay inay kalluunka qaab xaalafin ah u jallaabanayaan. noocani waa marka 2 doonyood isbarbar taagan yihiin, shabaq weynna ay ku wada dabanayaan kalluunka 300 ilaa 400 oo mitir. caddayn ayaa lagu hayaa. sarkaalkuna waa uu nagu raacay. laakiin isbeddel ma keenaysa. mararka qaarkood adiga oo dadaal badan sameeyey, markaad xeebta timaado dad ayaa wax kale kuu sheegaya, gaar ahaan ururada ama shirkadaha kalluunka. waxay mar kasta ku weydiinayaan maxaad doontayda u qabanaysaa iyo maxaad waxaan u samaynaysaa. 3 caanamaal oo aanu ku sugnayn badda waxaa noo muuqday kalluun aad loo xaalufinayo. khatar ayuu ku sugan yahay kalluunka Sierra Leone, waanay muuqataa. markii aanu ku soo noqonnay Freetown, dawladdu waxa ay sheegtay inay ku dadaalayso inay saxdo musuqmaasuq muddo dheer soo jiitamayey. sheekadan waanu soo afjaraynaa. xaqiiqdii waa ballanaan u qaaday nafteyda iyo reer Sierra Leone-ba. booqashadaydii kadib 2 doonyood ee Shiinuhu watay waa lagu waayey dembi ah inay wadeen xaalufin kalluun, laakiin waa laga qaaday liisamadii kadib markii nadaafad xumo ba'an lagu arkay. dawladdu waxa ay mamnuucday in bisha Abriil oo dhan qaab warshadaysi ah loo kalluumaysto. waa tallaabo aan la filayn. waa tallaabooyin yaryar, laakiin si loo badbaadiyo khayraadkan waxaa loo baahan yahay badbaadin aad u ballaadhan. waagaag bal markana haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. niyad jab kale ayaa soo gaartay xulka Portugal oo 2016 ka soo baxay kadib markii ay barbaro 1-1 ay la galeen Serbia. Cristiano Ronaldo ayaa dhaawacmay daqiiqadii 31aad ee ciyaarta. kooxda ku guuleysatay koobka adduunka ee kubadda cagta waa xulka Faranse. habeen wanaagsan ayay iyagu u ahayd kadib markii 4-0 ee Iceland uga badiyeen.
caawana xulka Talyaaniga waxa uu gurigooda kula kulmayaa xulka dalka yar ee Liechtenstein. tababare Roberto Mancini ayaa ka digay in inkastoo aysan Liechtenstein ku guuleysan koobka isreebka Euro sanado badan ay haddana yihiin koox adag oo halis ah ama halis ku keeni karta xulkiisa. dhanka kale Denmark ayaa Switzerland tagaysa, Spainna dalka kale oo yar ee Malta ayay wajahaysaa, halka Jamhuuriyadda Ireland ay martigelinayso kooxda Georgia. dowladda Talyaaniga ayaa isku dayaysa inay soo ceshato sawir gacmeed la sameeyay qarnigii 18aad kaasoo laga bilaqaystay magaalada Florence xilligii dagaalkii labaad ee adduunka. 75 sano kadib sawir gacmeedkaasi dib ayuu ugu soo laabanayaa magaalada iyo dalka Talyaaniga. Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir ayaa ka waramaya. waxbaa ka maqan xarunta bandhigga Uffizi ee magaalada Florence. muddo ayay kugu qaadanaysaa inaad ogaato waxa maqan. kan asalkiisa lagu magacaabi jiray baaquligii ubaxa ayaa waxa uu ahaa mid uu sawiray farshaxankii u dhashay dalka Holland Jan van Huysum qarnigii 18aad, waxaana la bilaqaystay dagaalkii labaad ee adduunka. goobtii uu sawirkaasi yaalina waxaa la dhigay iminka nuskhad iyadu caddaan iyo madow ah oo halkii kii hore laga qaaday la dhigay. waxaanu u surnay meesha nuqsad ama koobi sawirkii ah si aanu taageero ugu helo uguna baaqno dadka haysta kii asalka ahaa si farshaxankaani dib loogu soo celiyo. jarmalku waxay aad u boobeen dagaalkii labaad farshaxan badan, iyadoo markii dambena la sameeyey ciidan Maraykan oo soo ururiya farshaxankaasi. waxaa loo malaynayaa in kii asalka ahaa dalka Jarmalka yaallo. haddaba waxa weeye su'aashu yaa qaatay. waxaa loo badinaya in askari Naaziyiintii uu qaatay, dabeetana uu u geeyey reerkoodii, kuwaasi oo weli haysta. farshaxankaa haddaad haysato maxaad yeeli lahayd? farshaxanka sida kan Van Huysum waxay ila tahay aniga mid qiimo weyn ku fadhiya xagga dhaqanka, laakiin xagga ganacsiga qiimo weyn kuma lahan, waayo wax sharciya maaha. dowladda Jarmalka ayaa iminka iyadu baarlamaanka hortiisa ka qiratay in sawirkaasi ay Talyaanigu leeyihiin. qareen matalaya dowladda Jarmalka ayaa u sheegay saxaafadda Talyaaniga in iminka la doonayo in si niyad sami arrintaasi loo xalliyo, taasi oo sheegay in loo baahan yahay in uu go'aan ka gaadhaan guddi dhexdhexaad. laakiin Talyaaniga ayaa diiday inay kharash ka bixiyaan farshaxan ay marka horeba lahaayeen. dalkan ayaa waxa uu caan ku yahay inuu dib ula soo noqdo alaabta laga dhacay. bakhaarkan ayaa waxaa ka buuxa alaab fara badan oo farshaxana oo la xaday markii hore, markii dambena ay booliska iyo ciidanka la dagaalanka boobka farshaxanku ay dib u soo heleen. wadahadallo diblomaasiyadeed ayaa si fiican u socda. si furan ugama hadli karo, laakiin rajo fiican ayaan qabaa. bisha Sebtembar ee soo socota ayaa waxaa ku buuxa sanad guuradii 75aad ee ahayd markii sawirkaasi la xaday. laakiinse wakhtigaa ka hor ayaa madxafka Florence waxa ay filayaan in sawirkaasi uu u soo noqon doono. ugu dambeyntiina waxaanu idin haynaa buundo ku taalla waddanka New Zealand oo biyadaada oo ka soo baxay webiga Waiho ay qaadeen buundada oo idil. xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay gobolka Westland kadib markii roob lixaad leh oo daadkeena uu ku dhuftay gobolka ilaa Axadii. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa wadooyinka xirxiray iyagoo rayidkana ka daadgureeyay halkaasi. xusno wararka ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. inta aan mar kale dib u kulmaynan aniga iyo kooxda London waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.